السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا لها قيمة بدن شرفت بدن وحني لهلا ولكن شيخ ديبان علي سان نوغا برتين بمركزتي إن نيسو بنو أريمها كوسابسا اسمها يقوليها كينيا أما نيروبي أما بمباسا سيدا وقتهم با وحاول نقول يبيع دمس يوم معرض أوفا شركة قبلة هومس بحنيسي تاسان وترجمنا إن ولا لها ملكستي جوا دويدة كفايدستا أفركنا وحنقصو قدبنا وراليا أما حنقصو درينا إن معاميشنا ملك سيدوي جوجان هدينا رسو حريران أن أسمي دومنا أفركا قيمة دمس يبيع دمس كاسو وترجمنا قف كسته أو وحست قف أو وحسنبا إنه يبسكره شركات كلها ماشية كديسس ونيروبي حافظة سوتسي بمباسا حافظة نيالي سادرت قرية ديسين وقرية عصرية اسمه هو سريو يهين سدا تركي استيل ساسو كانوا حنوسمي دونا قرية ديسينو قرية فاسيلتي دميسترين قف كست يونت كوربو فاسيلتي كوربو انت وهلا حاجة يونت ده وحكى بلاونا يعني 5 bedroom 4 bedroom 3 bedroom 1 bedroom حاجة فاسيلتي ومساجدكي مدرستي سوين بولكي جيمكي سيداس oo kale supermarketkii cafeteriadii pharmacy sidaas oo kale ceelkii motorkii liftigii sidaas oo kale internetkii iyo cc cameradii iyo security guardkii wax kasto oo guri u baahan ama wax kasto guri leh shirkadda way u sameysay waxay kale u sameysay quruxdii iyo viewgii iyo designkii naqshadii iyo qaabka guriga oo u soo baxay saadada marka waxa leena walaalaha meel kasta jooga dad badan walaala ayaa waxay dhan shirkadda ma beeca ku soo darto iyo iibinta guryaha walaalayaal beeca usba bedela oo beeca offerka iyo beeca normalka usbedeli sida darteed qofka interest ku ah inuu guri gato ama hanti yeesho Kenya oo ka soo guuro qurbaha ama ilmaha soo qaato oo la soo guuro oo Kenya rabo inuu dego ama deegaan ka helo ama invest ka helo shirkadda qibla waxay ugu tala gashay guryo casri ah oo qurux badan sidaas oo kale waxaan offer labaad aan ugu dari doonaa hooyooyinka Soomaaliyeed maamooyinka inaan sii doono offer ay qaas u ah hooyo kasta oo shirkadda la soo xiriirto discount qaas ayaan u sameey doonaa percentiga la dhigayno waa ka yaree doonaa meesha ragga oo discountigooda uu sareeyo ayaan hooyooyinkana discountigooda yaree doonaa xagga bixinta depositiga ama percentiga 30%ga ragga waxaan ka qaadi doonaa 30% hooyooyinkana waxaan ka qaadi doonaa 20% taasoo qaas u tahay hooyooyinka aan rabno inay shirkadda u duceeyaan soo hooyo kastoona soo wacdo 20% ay dhigi doontaa aaba kastoona soo wacna 30% ayuu dhigi doonaa sidaa darteed shirkadda waa shirkadiina marka waxa sugtaanba waa inay shirkadda soo wacdaan la soo xiriirtaan kana faa'iideystaan offerada inteen isbedelin waxaan ila hadlay walaakiin Sheikh Liban Ali iyo shirkadii Qibla Homes. Assalamu alaykum rahmatullahi wa barakatuh. shirkadda dhismaha guryaha ee Qibla Homes guryahan qurxoon oo indhuhu qaabilayaan oo qalbiguna ku doogsaday waa qasriyadii Qibla Homes haddii aad qacdii hore ashqaraar la qabactiri waxba yaanu ku qaadin qalbi daraandarkuye kaalay Qibla Homes way ku qaabilaysaa shirkadda Qibla Homes waxay mashaariic ka wadaan Nairobi South Sea iyo Mombasa Niyali shirkadda guryaha ay dhisayso waa apartments iyo villas waxayna ka kooban yihiin 5 bedrooms duplex 4 bedrooms duplex 2 bedrooms duplex iyo sidoo kale 4 bedroom 3 bedroom 2 bedroom iyo 1 bedroom caadi ah guryaha qaar waxay leeyihiin qolkii shaqaalaha qaabka shirkaddu wax u dhisayso waa qaab heer sare ah oo Turkish style ah guri kastana waxa uu leeyahay masaajid madaraso swimming pool iyo gym playground meelaha lagu caweeyo ama sitting area wiishashkii motor automatic ah ceel biyood internet parking supermarket pharmacy cafeteria security guard iyo CCTV camera iyo facilities kale oo dhammaystiran shirkaddu waxay ugu baaqaysaa macaamiisheeda in beec dhimis soconaysa muddo 5 bilood ah oo u dhiganta 150 bari iyo fursad kale oo qaali ah loo sameeyay wixii faahfaahin inta dheer la xiriir maamulaha sare ee shirkadda Sheikh Liban Ali
adigoo kala xiriiraya telefoonnada iyo iimaylka shaashadda kaaga muuqda.